السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Ku soo dhawaada cashirkeena maanta oo ku saabsan grammar. Grammarku waa naxwaha luqadda Ingiriiska oo waa midka ugu muhiimsan in aad fahanto waana ka kuu suurtagelinaya inaad isku daydo inaad ku hadasho luqadda statement iyo jumlad aad dhisto isla markaana aad garan karto waxa aad ku hadlayso waa marka aad taqaano grammarka. Grammarka maanta waxaan ku soo qaadanaynaa nouns. Nounsku waa ay badan yihiin balse kuwooda ugu muhiimsan ayaynu soo qaadanaynaa oo ah common noun iyo proper noun. Common nouns waxaa la yidhaahdaa magacyada guud ee ay dadku wada yaqaanaan si guudna u wada adeegsadaan. Proper noun-na waa magacyada gaarka ah oo markaasi ah kuwo si gaar ah loo adeegsado. Khaanadani waxaa inoogu jira qoraal kooban oo ka hadlaya waxa ay yihiin nounska. Nouns are divided into common nouns and proper nouns. Common nouns are words for people, animal, place, or things. Waxaynu nidhi common nounska waa erayo ku saabsan dadka, xayawaanka, goob ama meel ama shay. These are words for people. Kuwani waa qaybta ku saabsan dadka. They are common nouns. Waxa ayna yihiin magacyada guud. Good. Ila soco. Magacyada guud ee la wada adeegsado ayaa halkani inoogu xardhan. Qofkaasi u horeeya waxaa ku qoran artist. Artist waa farshaxanaystaha ama qofka wax sawira. Waxaynu ognahay qofka wax sawira in meel kastaba loo yaqaan artist, luqad kastaba ha lagu dhaho, balse farshaxanaystahu waa magac guud ayaynu oranaynaa. Liiskan inoo taxan waa qayb ka mid ah common nouns loo isticmaalo dadka sida actor oo ajilaa, lawyer oo ah qareen, aunt, judge, baby, man, hacker, nurse. Waxyaabahaas dentist, singer, dentistaha waanu naqanaa oo waa kan ilkaha inoo hagaajiya. Singer waa heesaaga, doctorkii, soldierka, askarigii iyo dhammaan waxyaabahaas oo dhan iyo wixii la halmaala waxaynu oranaynaa waa common noun. waa ay fara badan yihiin intan kaliya kuma koobna balse waa tusaale guud oo ku siinayo in ayagoo wixii la mid ah loo isticmaali karo ama aad u isticmaali karto in ay yihiin common noun. qaybtaasi waxay ahayd qaybta aan u isticmaalayno dadka. haddaba xayawaankana aynu isla eegno. These are words for animal. They are common nouns. Kuwani waa kuwa loo isticmaala xayawaanka waana magacyada guud. waxaa ka mid ah eagle oo ah baalka la yidhaahdo gorgorka, zebra, deer, pad oo shimbirta, crocodile oo ah yaxaaska, pear oo jeerta ah iyo wixii la mid ah. sidoo kale cat, cow, hen, duck, horse, dolphin, moose, duck, parrot, fish, shark, goat, owl. dhammaan waxyaabahaasi waxaynu oranaynaa waa magacyada guud ee loo isticmaalo xayawaanka. sidaas la mid ah common nounku waxa uu soo gelayaa goobaha aynu ku dalxiisno, meelaha aynu wax ku akhrisanno, halka aynu wax ku baranno, meesha aynu gawaarida iyo baabuurta dhiganno. waxyaabahaas oo dhan waa common noun ku saabsan place ama goob. waxaa ka mid ah beach oo ah goobaha lagu dalxiisa ee xeebaha, back goobaha baabuurta iyo waxyaabaha la dhigtay lagu baakinto, library goobaha wax lagu akhristo, shop
halka lagu dukaamaysto iyo kuwo kaloo ah oo badan. waxaa ka mid ah airport, market, cave, mountain, church, playground, restaurant, hill, schools ama school, hospital, seashore, hotel, stadium, houses iyo wixii lamid ah. erayadani haddii aad micnahooda u baahan tahay waa airport oo boorka ah, market, mountain oo buur ah, playground oo ah garoonka lagu cayaaro, restaurant oo ah iyana maqaaxi sida aan wada naqaano, hill oo buur ah iyo wixii lamid ah. waxyaabahaas oo dhan waxaynu odhanaynaa common noun. common noun of place. kuwanina waa common noun of things. These are words for things. waa kuwa ka hadlaya shayaal ama ashyaa aan isticmaal. waxaa ka mid ah basket oo dambiisha ah, bed oo ah sariirta, tam oo ah durbaanka, cake oo ah keega aynu isticmaalno, blanket oo ah bustaha, gate oo ganjaalka ah iyo kuwo kale oo badan. haddaba isku day inaad dib u qorto erayadan adiga oo ku calaamadinaya in ay yihiin common nouns. waan ogahay inaad horey usoo qaadatay oo aad qaybtood taqaan iyo kuwo kale oo badan, balse muhiimaddu waxay tahay grammatically waxa ay yihiin inaan fahanno. nagu soo biir, aad ayaa u mahadsan tahay.